Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalka Bro ICT IT. waa tii casharadii awadnay halkaas ayaan kasii wadi doonaa. waa tii aan bilownay cashirkii maaragtay HTML iyo CSS. marka si toos ayaan u geli doonaa barnaamijkeena maaragtay practicada ah. waxaan filayaa Notepad++ inaad soo degsatay. marka kaas ayaan kicin doonaa. waa kii hore casharkii hore aan sameynay new inoo dheh mid cusub ayaan sameyn doonaa. markaas waxaad ku bilaabaysaa HTML ayaa xiraysaa. waxaad xujin doontaa head maaragtay ayaa furi doontaa ama xiri doontaa. kadibna maaragtay title ayaan sameyn doonaa. title-ka laakiin waxaan u bedeli maanta waxaan u bedelaynaa maaragtay si toos ayaan waxaan ka dhigaynaa h2. waa casharkii hore hadday aad ila socotay waa tii h1 iyo h2 iyo aan soo sameynay anagoona maaragtay title aan u sameynin ama aan iska sameyno dhib malahan. kaba copy noo soo dheh title-ka ha noolaato pagekeena noo ahaado. kadibna waxyar koodhka si kugu qorxubnaado saas ayaad dhehaysaa. kadibna maaragtay waxaan furaynaa h2 ayaan ka dhiganaa h2. kadibna amaad xirtaa. waxaan dhehaynaa marka formka registration form macnaha wuxuu ku noqonayaa formka Soomaali ahaan diiwaangelinta. kadibna h2 ga ayaan xiri doonaa. waad xiraysaa h2 ayaad xiri doontaa. kadibna waxaad sameyn doontaa formka haddaad furaysaa. marka formka ayaad furaysaa. kadibna waxaad gelinaysaa label. waxyar space inaa u baxdaa fiican si koodhka u qurux badnaado. label 4 ayaa dhihi doontaa macnaha formkii ayaa kugu maaragtay aad bilaabaysaa. quotationkaas ayaa furaysaa. kadibna first name f ayaa kasoo qaadanaysaa name. kadibna quotationka xiraysaa. kadibna tagga xiraysaa. tagga ii xir waa soo furtay. first name kadibna labelkii ayaad xiraysaa. waa la socotaan filaya labelkii ayaad xiraysaa. kadibna br ayaan leenahay maaragtay inuu noogu bilaado. marka br ayaan dhahnay si oo maaragtay pageka kale macnaha lineka kale noogu bilaado. waa br waa soo baranay. marka wuxuu line cusub ayuu ku siinayaa. kadibna saas aan dhahno soo iskugu darin. marka waxaan gelinaynaa inputkii aan gelin lahayn ayaan gelin doonaa oo ahaa text ama number. macnaha markaas waxay ku xiran tahay qaabkii aad qorayso. hadda laakiin text ayaan dhigaynaa. input ayaad leedahay
waxaa la gelinaya type equal text ayaa gelaya meeshaas, halkaasna waa kasoo baxaya macnaha haddii aad laakiin si toos ayaad u qoraysaa meeshaasna waa ka dooran kartaa. marka id ayaa la gelinaya, id-ga muxuu noqonaya marka f maaragtay f first name aan soo gaabsanay, kadibna quotation inaan inta kasoo furnay ahayd, quotation aan ku xirno way la socotaan filaya, kadibna waxaad samaynaysaa value ayaa siin doontaa waxa gelaya macnaha waxa aad gelinaysa markaas. kadibna equal aa leedahay, quotationka furaysaa, tusaale ahaan magacan camal inuu ku bilaabo si marka qofka soo galo oo arko maaragtay in meeshaas magaca la gelinayo inuu arko, kadibna maaragtay br waa soo xireynaa, brt la socotaa waa line cusub, kadibna mid kale ayaan samayn doonaa ama copy aan soo dhigi doonaa haddaad rabtid, laakiin inaan iska qorno ayaa fiican maadaama waxaan isleeyahay casharka ama nagu dheeraada, laakiin waan iska qoraynaa. copy waxaan usoo dhigayna maaragta waxaan isleeyahay waqtiga ha ku koobnaada cashar fiican saa u dhigto, laakiin maanta formkan ayaan ku ekeyn doonaa hadduu yiraahdo. marka waxaad furaysaa inputkii waa samaysay, level kale ayaa samaynaysa oo last name-ka kanba copy iska soo dhig maaragtay yaan copy-ka waa ila fahmaysaan oo macnaheeya waa first name-kiis haddana last name-ki maaragtay ayaan meeshan le last name ka dhigana maaragtay meeshan l ayaa ka dhigaysaa waa ila socotaa macnaheena maadaama last name kana waxaad last name aad gelinaysaa last name, kadibna waa xirnay, kadibna br inkastoo kan laba tag oo noo noqday hal tag ayaa laga rabaa oo ila socoto, kadibna importkii kan waa soo koobiyin karnaa laakiin aan iska qorno si macnaha textigan waa first name-ki waa sameynay, last name-ki waa isku mid ay noqonaya macnaha kan haddii aan soo copy soo dhahan laakiin aan qorno dhigno input type is type, kadibna equal quotation text quotation, kadibna id, kadibna quotation way la socotaa maleyna last name ay noqonaysaa l name last name quotationka waa xiraysaa, kadibna name equal marka quotation ayaan dhahnay, kadibna meeshaas last name ayaa gelaysa markasta waxa waaye quotationka xiraysa haddana, kadibna value waa kan camal aan sameynayna kan value meeshaas noogu dar enter ayaa leedahay, kadibna equal quotation qof magaciisa guuleed camal last name qofka ayaa gelinaysaa, last name-kayga waa Said Cali ama Said Cali ama Sido midkii maaragtay okay
okay. Formkii ayaan xiri doonaa meeshaas way la socotaa malaynaya maya waxaa noo dhiman br inaan ka dhigno si maya br ma u baahni maadaama aanan mid kale formkaan xiraynaa sida koorka kugu fiicnaada oo kugu qurux badan waa space aa leedahay kadibna formkii aan soo furnay ayaan xiri doonaa oo maaragtay waa kan kadibna waa tii aan body waa soo furnay sooma inta maya body aan ka tagnay bodyga waa inaan furtaa headkaba naga dhaaf body ka bilow bodygaas haddana bodygii ayaan xiri doonaa kadibna html ayaan xiri doonaa html kadibna waa save garaynaynaa save as ama save kadibna wuu kusoo bandhigaya save dheh ht waxaad maaragtay waa inaad html haddaad ilowdo makuu shaqeynaa marka la soco barasho ama cashar ayay leedahay html kadibna save saasuu noqonaya waa isbedeleysaa inuu kuu shaqeeyo waa dareemeysaa kadibna meeshii aan ku save garaysa ayaa tegi doontaa oo maaragtay casharadii meeshii aan ku save garaynay html barasho cashar waa ka last name brkaas brkii aan ka tagnay mujida halkan waa inoo keenay ahayd last name marka meeshan codkeena ayaan ku laabanaynaa meeshan ayaan dhihi doonaa br brkan aan shaqeynayna malaynaa sug why okay halkan in aan br ku darno marka br kadibna save maxaa isbedelay refresh aan dhahno maya marka last nameka maaragtay waa ujeedaan waa khaldan yahay waa inuu halkaas yimaadaa maaragtay marka aan ku laabano codkeena si aan u saxno haduu ilaarado marka qaladka meesha ku jiro maaragtay ma fahanteen brkan hataa uma baahno brkan aan iska tirno laakiin importkii aan soo sameynay oo taagii aan soo furnay taagiisa waa inaan xirnaa marka wax yar hadday kaa khaldan yihiin kuma shaqeynayo oo maaragtay sidii la rabay kanna sidoo kale importkii aan soo furnay oo taagiisa kale waa inaan xirnaa sidii aan libelka u furnay u xirnay marka sidoo kale waa inaad saas u xirtaa kadib save haddaad dhahdo hadda maaragtay si toos ayuu maaragtay u imaanayaa oo refresh haddaad dhahdo ujeedaan last name iyo first name marka waa in taaggaas ayaa naga qaldanaa oo aan ka tagnay maaragtay hadda fiiri taagga markaan aan ka tirno taaggan kale aan ka tirno ila kan waa furan yahay kana ma xirno marka save aan dhahno meeshan aan ku laabano intaan ka wadaa kadibna aan dhahno refresh sidiisuu ku laabanaa macnaha maadaama kan uu xirnayn si toos inuu furan yahay ayuu u qaadanaya marka taagiska waa in markaas iska fiirisaa kan aan xirno kanna aan xirno brkiisna waa wataa marka si toos ayuu hadda u shaqeynaa marka refresh aan dhahno okay meesha taag
taagi fiiri fiiri taagi waa inaad eh, kan waa inuu maaragtay halkan yaala maaragtay oo quotation ka dambeeya marka saas daraadeed ma ku shaqeynayo marka waa inaad markasto aad la socotaa waxa maaragtay xir hadduu ka qaldamo wixii kale ma shaqeynayo marka waa inaad markasta la socotaa html-ka ama program kasta markaad samaynayso waa saas halkaas ayaan kusoo gabeynayaa casharkeena maanta foomka aan ku baranaynay foomka waa weyneyn kartaa qaabo badan ayaa u samayn kartaa marka videoga ayaa sii dheeraanaya casharkan halkan ayaan ku joojin doonaa ila soo casharada dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu